waxaan u mahadcelinayaa xildhibaanadii qiimaha badnaa ee runtii ayaga oo dagaal lagula jiro oo lala diriraayo oo cadawga Soomaaliyeed la dagaalamayo ee aan ogolayn Soomaaliya inay meeshaas dhaafto ee aan ogolayn Soomaaliya inay dibadda u aasato tiirarkeeda dawladnimo ayagoo ay hor taagan yihiin been la sheegayo la qasaayo kolba meel lagu xarxaraynayo la kaxkaxaynayo oo dadkii la walaacinayo xildhibaanadii waxaas oo dhan iska diiday ee waajibkooda qabsaday ee dalkooda u hiiliyay ee dadkooda u hiiliyay ee dastuurka maanta asixiyay waxaan leeyahay geesiyaal baatihiin waana mahadsantiin aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa waan u hambalyeeynaya dadka Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan guul bay u tahay muxaafidka guul bay u tahay mucaaridka guul bay u tahay qof kasta oo Soomaaliya dad gaar ah oo dan ka wata ma leh ummadda Soomaaliyeed baa iska leh waana guul muddo dheer lagu soo taamay qof kasta oo siyaasi ah marka kaliya ee uu rabo inuu dadka wax ka raadiyo ee uu wax ka doonayo ee uu rabo inuu beeca la galo ee uu dhaho inuu doorta dhaho wuxuu fiiriyaa shacabka ummaddu eega waxay rabaan ayuu identify gareeyaa wuxuu dhahaa shacabkani waxaasay rabaan badeecada noocaas hadaad la timaado waa laga gadanayaa dadku way ku aqbalayaan deedna tiibuu dadka la istaagaa oo dhahaa waxa iyo waxaasan qabanaya waxaad marxaati ka tihiin qof kasta oo Soomaali ah in oo siyaasi ahay markuu dadka rabay inuu beeca la galo inuu lahaa dastuurkan dhamaystiraya doorasho qof iyo cod aan qabanaya dadkii wax ay qabanayeen ay doonayeen saasay ahayd tiibaana maanta la qabtay guul baana rajaynayaa waana mahadsantihiin